runtii fanka aad baan u jecelahay fanaaniintana runtii waan ka mid ahay mar baa kursiga aan ku fadhiyo waxaan leedahay kursigan 4.5 marka loo qeybiyo kii fanaaniinta waay ma gartay anagoo inaga maartay xoogaa meesha aan ku tollahay hadda saadaan ugu soo darsantay ma gartay nin saaxiibkeenu yimid waa abshir waxa sugaynaa goordhow inuu nagu soo biiro saaxiibkiisa hadda dhinac wuxuu u leexday moogtahay xukuumadda oo diblomaasi waay laakiin abshir waxa sugaynaa inuu baarlamaanka noo soo galo si aan laftirka u sagaashan bursan marka qaarna waa xafiltanaay waxaan idhahdaa suugaanta inkastoo nafirka ay kuwa iga noqdeen kuwa geeleyda oo heesaha hadda ku leeyahay waxa dhinaca beeraha ma la taabto dhinaca maanta marka waxaan beeraleyda waxay dadkaan xoogaa yar waa silugayaan wax badan ba laakiin haddii talo laga qaato waxba hagaagi lahaa waxa kamid ah Soomaalidan waxa la yiri baddan iyo barigan waa ku dhamaatay Soomaalidii meel ma fariisanayso waa socotaa wadankeedii inay iska joogto waa diiday maxaa tala cilada intay ka timid la yiri ninba meel uu ku dhuftay من بيرلي وأضيع مسكين أديك لو ملاينا يا واحد حقبت سومالي ده وحيل فريسان لا هاي أنا قاعد أدي شيء لكن كمية اللي يصير هاي محل باسبورك يبغى تفير يقول معاكم بسوي جيلك بسوي أديك النجيل ميل ما فريسان أديك جيل جو جيل ميل فريسان فيا غير سيدو جيل وسحر هاي سومالي بالك سومالي تفريس ترى قم بحلو بسوي جيلك أصلا جيلنا مرق عوض باسبورك جيلك لقى بدل قم بحلو وأنت كيس سوى فريس كليس بروفيسور ما باي أم موسور بروفيسور وعلى حكومة كليرك كذي على سؤالك وعلى حكومة بروفيسور وقتها سوى ده سومالي ده 6 مليون إثيوبيا iyo 40 milyan oo Kenya iyo waxa ku hareeraysan dadka badan markaas ninka Soomaaliga ah waa inuu u qalmaa ama qabkii geelo kale uu ku jira oo qursigu diido sida marka geel uu soconayo qoorta dheer u jiro isaguna waxa uu soconayo Greenland Soomaaliya socodkana rabana soo daawir socodkana rabana soo sheesay Soomaaliya ku soo celino abshir xalan ranti baan aragnay aniga iyo Maxamed Yuusuf hadda kaamirada naga duubaya iyo asaga wuxuu yiri rantigaas baabuurta hoon ku yeerin hadii aaba arki laa nimanka hoon ku yeerin waa dilla aad baan ugu farxsanahay rantiga waxana ka baqaysa hoon lagu yeerinayo aaba haduu noolaan lahaa jaan madaxweynaha hadda meeshan maray xabad buu ku kala goyn lahaa qofka hoon ku yeerinay adiga ragaasan marka gaari haduu wada xataa Soomaalida waxa la qalaad u sheego dalka guduudka ma uu istaagto marka waxa geel waxa ila kar bal waqti sidoo jeeda qofkiisa waxa way xabad roon ku dhajiyo wada sharci loo sameeyay waxa habeenkii dadka soo jiifay soo socdo marka mubarak